halkaad naga daawanaysaan soo dhawaada maan idin leenahay waxaan ku sugannahay magaalada Jigjiga ee caasimadda u ah dowlad deegaanka Soomaalida waxaa barbarkayga fadhiya madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaalida deegaanka Soomaalida waa Cabdifataax Xaaji Mataan oo in badan aad wada garanaysaan waa nin dhalinyaro oo firfircoon marar badan ka caawiyay federationka Somaliland in waxyaabo badan oo ay u baahnaayeen gudoomiyaha ku soo booqday xafiiskiisa oo ay shaqada ka socoto gudoomiyaha ugu horreyn ku soo dhawow ugu warbixisaa bal waxyaabaha ku qabsoomay intii aad joogtay iyo sidoo kale waxyaabaha doonaysa inaad ka hirgeliso deegaanka in deegaanka Soomaalida ay soo gaaraan waana ku rajoonaynaa insha Allah macnaheedu waa inaad halkan imaan doontaan waan ka mid noqon doono geeyiga Soomaalida degto guud ahaan aad ka howlgashaan in insha Allah anaguna qayb aan ka noqon doono saan wada ogsoonahay xiriirka kubadda cagta ee dowladda deegaanka Soomaalida waa markii ugu horeysay uu doorasho uu galo waagi hore waxaa jiri jirtay in xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha ونوع مقعد هانا معني وحوي لو مقعد جري انت لكن هذا وحنا كسرنا هين دورة شدي ورئيسي إلهي ونقول ليه ونقولنا أني يو سقال حنود وقت السنة قلت لي فلنت حين بدأ عقتها نقولنا ضد معني وحوي صباحا نهانتي ومدكوا مع هذا جرنا لكن وحنا نقول فرح صرنا هنا هولا بدنا نقبلنا مو نشيل هذا حريركم على هين ميل جوني أو كهول قلو سألكسونتها هي طبعا حوانتا حفيز قد لحفر لذا وحا إسكاله حينكم بدأ عقد دور ديان الصومالي ده ببوش كوبادين سويني وحكرنا مثلنا هاي حينكم بدأ عقدها إن إسكي مانتا وسمى الحبرانية ولا شقينية لأن هذا كهولا عيالتك بدأ عقدها وحان دوان سوق بقويني ترتنكي magaalada Jigjiga 17 jiradii waan iska kaashanayna anaga iyo xafiiska nabadgelyada iyo ciidanka xoogga gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalidu tartanka waxaa loogu magac daray Peace Cup muddo 3 cisho ka hor u dhamaaday waxaan uga faa'iideysanay inaan ku xulano dhalinyarada 17 jirada ah ornaanta ay miisanahay magaalooyinka saddex ka mid ah inaan ka soo xulanay sida magaalada Dhagaxbuur iyo magaalada Qowrbeex iyo kan Jigjiga dhalinyarada Soomaaliya ku sugan caasimadda waxaan u jeedaa magaalada Zuway ee deegaanka Oromada iyagoo halka kula tartamaya ama kula ciyaari doona kilaabyada Ethiopia ka dhisan iyo deegaanada dalku uu leeyahay waxaa inta loogu sii horeysay in xiriirku iskii uu diro dhalinyaro magawata magaca taariikhiga ay Karamarda kuwaas oo iyaguna ku sugnaa deegaanka Sidaamada caasimadiisa Hawaasa ornaanta ay misanayna guul fiican macnaheedu waxa weey soo hooyeen qaab ciyaaroodkooda iyo xulashada macnaheedu dhalinyarada la xushay waana misanahay maanta xiriirka kubadda cagta ee dalku inuu aad ugu baahan yahay maanta 5 ciyaarto oo naga soo codsadeen waa guul aan leenahay waxa weey aad baan ugu faraxsanahay waxa inta noo soo raacda in ilaa maanta aan wadno xulashadii daayirta kala gedisnayd uu leeyahay muxuu ahaa deegaanku iyadoon aadi doono insha Allah magaalooyinka gobolada iyo degmooyinka waxaan intuu doonaa insha Allah waxaan halkan noo yaala koobiska aan ugu talagalay in tartanada macni waxa weey lagu bixiyo iyo abarmarinadii waana ka xiriir ahaan iskana aan soo iibsanay iyadoo aan ka helina caawitaan badan shacabka ku dhaqan deegaanka Soomaalida guud ahaan dal iyo dibadba inkastoo rajayna insha Allah in gacasada deegaanku ay nasoo firin doonaan iyo dowladda lafteeduba waxaan aad halkan uga mahadcelinayaa wasiirka xafiiska dhalinyarada ee ciyaaraha mudane Cumar Siyaad Ibrahim Ahmed ornaantii annaga maanta fursada noo siiyay inaan kartidanada iyo waxa weey shaqadanada aan ku soo bandhigi karno anagoo si iskay u taagan waxaan inta noo soo raacdo cilaaqaadka aan leenahay dowladaha jaarka sida walaalaha Somaliland oo markii horeysay xiriirka la magacaabay aan fursad u helay
inaan ka helo CAF iyo FIFA wada socota iyo CECAFA-ba tababarayaal muxuu ahaa in la tababaro garsoorayaal xirfad wanaagsan u leh inay ciyaarsiiyaan ama dhexdhexaadiyaan dhalinyarada macni waxa weeye ka howlan ciyaarista kubadda cagta 40 shaksi baan ka helnay 40kii shaksi anagu iskumaanaan koobin waxaan eegnay maadaama anagu aan dawlad maanta la aqoonsan yahay aan nahay walaalahan inaan uga faa'iidaysano fursadaas maanta anagu aan helnay 30 baan qaadanay 10 iyadaan siinay 30 qaadanay caasimada deegaanka iyo waxaan u qaybinay gobolada Somaliland maanta dadka dhexdhexaadiya hadda waxaan aaminsanahay dhalinyaro xirfad lahayd si fiican macni waxa weeye aqoonta garsoornimo u haysatay in badan ku hawlanayd in ay ka shaqeeyaan ama dhexdhexaadiyaan ciyaaraha kala gedisan ee caasimada Somaliland ee magaalada Hargeysa iyo guud ahaan dhammaan gobolada macni Somaliland ay leedahay ba maanta fursad waxay u heleen in aqoonsi ay helaan oo maanta meel walba ay tagaan ay kaga shaqeysanayaan oo shahaadooyin macni ay ka helaan FIFA iyo CECAFA iyo CAF macni waxa weeye ka dhisan guud ahaan caalamka Afrika iyo geeska Afrika iyo dowladda Ethiopia oo xiriir kubadda cagta dalka Ethiopia anoo iskaashanayna aan fursadaas siinay muxuu ahaa walaalaha naga jaarkana warnaantii aaminsanahay ciyaartoogayoodu inuu ka safto deegaanka Soomaalida inta u badan kaanagu macni waxa weeye hadda wasaaradda kale gedisan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay ciyaarto annaga ah in macni waxa weeye maanta uu ka ciyaarayo marka waxaan dhigi karaa waxaan nahay dad iskaashigoodu si qoto dheer macni waxa weeye uu socdo inta ay ka badan inaan sii xoojinaa rajadeedu ay tahay hadda waxaan ku soconaa insha Allah casuumad ka helay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee Somaliland Mr. Fuad iyo wasaaradda sportiga iyo dhalinyarada macni waxa weeye Somaliland oo insha Allah ka soo wada hadli doono wada xaajoodna geli doono aan siin doono insha Allah hada tababar hada dhawaan aan qaban doono oo ah in macallimiin tayo leh ay hogaamiyaan kooxaha deegaanka Soomaalida tababarkaas oo kaafan ka helay baan rabnaa insha Allah inaan Somaliland macni waxa weeye eegana sidii kii hore aan xusno kale aan xusno maadaama ciyaartoogii labada meelood macni waxa weeye tagayo waxaan kaloon macnihi aan farxadda soo koobi karin maanta aniga ah oo aad ugu hambalyeynaya Somaliland hadda ka hor aan lahayn xul qaran in xiriir kubadda cagta ee Somaliland maanta ay ku guuleystaan inay dhisaan xulkii qaranka ornaantii aan xiriir kubadda cagta ee federaalka macnihi dowladda Ethiopia iyo anagoo iskaashanayna aan aaminsanahay maanta inaan ka caawinay shuruuco badan oo looga baahna macni waxa weeye dhisida xulka qaranka la sameynayo gudoomiyaha ka dhex galo xulka qaranka la sameynayo waa la og yahay wadamo loo dan la aqoonsan yahay maaha su-aasha ugu badan ee dadku isweydiinayaan waxa weeye xulka marka la sameeyo la ciyaaraya bulshada kasoo noqonaysa idinku ka dowlad ahaan maxaa ku caawin doontaan xulkan hadday tahay sharcigii iyo hadday tahay ciyaartoydu aqoonsiga ay heli lahaayeen horta saan aqsoonahay sportigu ma aha macnihi siyaasad ma galo waxaan rabnaa inaan macnihi ka babacno in la kala qaado sportiga iyo siyaasadda annagu waxaan ugu ballan qaadnay diyaarna aan u nahay heeganna maanta aan ugu jirnaa in xulka qaranka Somaliland aan u jeexno annagoo iskaashanayna meeluhu ku ciyaari lahaa dadka uu la ciyaari lahaa oo runaantii aan aaminsanahay inaan ka bilowno caasimada deegaanka Jigjiga uu la ciyaari doono insha Allah kooxaha waaweyn sida kooxda Lipoliska iyo kooxda Karamarda waxaan u gudbin doonaa insha Allah inuu dhammaan dadka hadda ku jira kooxaha ka dhisan waddanka iyo meel walba looga baahdo in xulka qaranka Somaliland uu ka ciyaaro anagoo iskaashanayna insha Allah waa mid waxa weeye dadaalkeeda aan muujinayno oo una sheegayna dhammaan siyaasiyiintu inuuna ahayn sportigu uuna lahayn wax siyaasad uuna ku jirin oo ciyaartooga macnihii qaranka Somaliland uu meel walba kasoo ciyaari karo ka Jigjiga oo meel walba macnihi wax uu ka ciyaari doono hadda waxaan wadnaa insha Allah waxa weeye hadda inaan gudbino rabnaa in Soomaali meel walba ay joogto maadaama rugtii
xuduntii Soomaalida ay noqotay maanta caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga waxaan aaminsanahay run ahaantii in barnaamijka buugaga iyo macnihii bandhigyada kala gedisan in lagu qabanayo deegaanka Soomaalida in halkan lagu qaban doono dhammaan dadka afka Soomaaliya ku hadla meel walba ay joogaan sida tusaale ahaan hadda Somaliland oo kale Puntland iyo Jubbaland Soomaaliya Kenya macnihi waxa weeye dadka naga jooga annaga oo deegaankii Soomaalida ah in dadka afka Soomaalida ku wada hadla aan koob insha Allah halkan ugu dhigi doono halkan ay ku ciyaari doonaan caasimada deegaankuna ay kulmin doonto iyadoo ka baxsan siyaasad in laakiin sportigu is jacayl iyo wanaag iyo kalgacal uu soo kordhin doono insha Allah taasina waxaan macnihi waxa weeye maanta ka filayno in xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida ay nagu garab istaagi doonto guud ahaanteed waxaan leeyahay markaa annaga iyo xiriir kubadda cagta ee Somaliland xiriir fiican baa naga dhexeeya waxaan aaminsanahay hadda ciyaartii u dambeysay garsooraha dhexdhexaadinayay in uu ka mid yahay xiriir kubadda cagta ee deegaanka Soomaalida garsoore Ayuub oo run ahaantii ciyaaraha ugu waaweyn maanta Somaliland dhexdhexaadinaya wayna soo weydiistaan run ahaantii annaga ka xiriir ahaan waxa weeye waa mid aan u fasaxno si uu soo ciyaarsiiyo haddaan u baahno garsoorayaasha Somaliland ay leedahayna waa kuwaan soo kaxaysanayno oo noo dhexdhexaadin doono ciyaaraha annaga kala gedisan tusaale ahaan waxaan ku rajo weynahay insha Allah marka koobka gobolada bilowdo in sida ay iyagu kaxaysanayaan iyagana kuwooda aan usoo kaxaysano in tayada ay leeyihiin Somaliland waxay nagu dhaamaan ka xiriir ahaan aan ka qaadano fikirka aan urursano aan ku dhaqano in annagu waxaan ku dhaano inaan macnihi ku caawino sida dowlad ahaanta maanta annagu aan nahay maadaama dowlad ku tiirsan nahay xuquuqdeedii xaqi aan lahayn aan FIFA iyo CAF iyo Sekafa ka soo ridanayno in waxaan helno walaalaha annaga macnihi waxa weeye qayb aan ka siino waxaan maanta macnihi fursadan uga faa'iideysanayaa kowa warbaahinta ku dhisan deegaanka Soomaalida joogta ka shaqeysa caasimadda run ahaantii hal wiil baa inta badan ku mashquula muxuu ahaa ama run ahaantii dhiirigelin badan la siiya Cabdixakiin Xasan Kabari oo barnaamijka geedka nabad inta badan macnihi waxa weeye daadihiya warbaahinta marka waxaan leeyahay meeshaad kaga mashquulsan tihiin wasiir hebel baa sida yiri iyo wasiir hebel baa maxay sameeyay iyo ganacsade hebel baa sidan iyo koox hebel baa maxay iyo waxaad leedihiin waxa idin baahan wajiil ka soo kacay in maskaxdooda la nadiifiyo in muqaddaraadka laga joojiyo in la dhiso in maskaxda laga dhiso in adaabtooda iyo akhlaaqdooda la dhiso taasna waxay ku imanaysaa macnihi waxa weeye sportiga in kor loo qaado uu koob ka yahay kubadda cagta marka warbaahinta deegaanka Soomaalida guud ahaan hadday noqoto kuwa dowladda iyo hadday noqoto kuwa gaarka loo leeyahayba waxaan si xushmad loogu codsanaynaa inay ku daydaan da'yarta iyo dhalinyarada macnihi home cable muxuu ahaa True Cable iyo Sky muxuu ahaa TV iyo sidaad aragtaba muxuu ahaa Star oo kale Sahan oo kale inay ku daydaan waa ay ka soo jeedsadaan bal meeshan inta badan ay xoog ku saarayaan siyaasadda inay bal usoo jeedsadaan dhanka macnihi ciyaaraha runaantii waxaan aaminsanahay hadda Somaliland maanta waxaa kor u qaadaya Puntland waxaa kor u qaaday waxaa macnihii isheeg Ethiopia kore hadda dhagwi sport oo kale macnihii oo ilaa life uga soconayso muxuu ahaa saacad walba ciyaar walba socoto waxaa kor u qaadaya waa dhalinyaro qeyrkiina waa iyaga maalka ku bixiya saan aaminsanahay hadda TV-yada hadda Somaliland sportiga macnihi ku mashquulsan saan hadda sheeko ku hayno ama aan aragnayba ama aan la kulanayba tartanka iyaga u gala iyaga macnihi ku bixiya macnihi lacagtooda halkan markuu wariyo wax ku duubo waxa weeye laga yaabaa in adigii macnihi xiriir ahaan uu dib wax ku weydiiyo marka waxaan leenahay warbaahinta maanta waa shay koobaad ee maanta u socda inaan runta u sheegno warbaahintu ha noqoto mid xiiseysa sportiga warbaahintu ha noqoto mid arrimaha bulshada ka shaqeysa arrimaha bulshada markaan leenahay waxaa kow ka ah in dhalinyarada macnihi waxa weeye wanaag iyo jahayn iyo qalbi fiican macnihi lagu jiheeyo intaasna waxaan leenahay maalqabeennada macnihi dadka iska leh TV-yada gaarka loo leeyahay TV-ga dowladda laftiisa inay bal barnaamijyada sida live-ka ee Sky TV iyo True Cable ay usoo daynayaan waa isla meesha waxa weeye wax xirfadii iyo aqoontii way leeyihiin laakiin waxaan jirin wax macnihii rabitaan aan jirin baan aaminsanahay arrinka labaad maanta waxaan halkan kasoo jeedinaynaa ku codsanaynaa geyga Soomaalida guud ahaan sportiga kala gedisan arkayna waxaa kor u qaaday waa ganacsato waxaa kor u qaaday waa maalqabeeno
waxaa kor u qaaday waa gashiga iyo maalka wuxuu ilaahay dadka uu siiyey weeyaan. ganacsadii deegaanku way kasii jeedaan muxuu ahaa inta badan run ahaantii dhanka sportiga. waxaan leeyahay markaa xidhiidhka kubadda cagta wuxuu idinku baaqayaa qof walba wiilkiisu inuu wacnaado, uu wanaagsanaado, uuna muqaadaraad gelin, uu wanaagsanaado, salaada uu tukado, uu caafimaad qabo, uu jecel yahay. sidaad wiilkaa ugu jeceshahay hantida uu ilaahay ku siiyey ku badbaadi macnaha dhalinyarada deegaanka. hantida uu ilaahay ku siiyey ku samee macnaha waxa weeye koox aad iskaa u leedahay oo lagu hirto oo dhalinyaradu istiraado macnaha sida hebel oo kale aad meel gaadhi. waxaan leeyahay ganacsatada insha allah inay codsigayga nooga soo jawaabi doonaan, waana mid mar walba aan soo jeedino oon insha allah macnihii aan mar walba aan ka filayno in rajo weyn aan ka qabno. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan bilaabi doono liigii deegaanka oo nagu magac darnay koobka xidhiidhka kubadda cagta ee deegaanka soomaalida. waxaan ku bilaabi doonaa 12 xafiis oo deegaanka soomaalida ka kooban, xafiisyada u waaweyn deegaanka. run ahaantii way badan yihiin xafiisyada deegaanku, laakiin waa xafiisyada mas-uuliyiintooda sida gaarka ah ay noo soo jiiteen, noo garab istaagsan yihiin, ballanqaadna noo sameeyeen inay sameyn doonaan macnihii kooxaha ay xafiisyadaasu leeyihiin oo dhalinyarada la arki doono insha allah iyagoo xafiiska nabadgelyada u ciyaaraya, iyagoo xafiiska howlaha guud u ciyaaraya, iyagoo xafiiska beeraha u ciyaaraya, waxbarashada, biyaha, maaliyadda, madaxtooyada. xafiisya noocaasa insha allah ayaan xulanay, xafiiska kobcinta awoodda. ornaanta aaminsanahay wasiirka macnihi waxa weeye cabdiqaadir inuu shaksiga keliya hal iyo jeer garab istaag badanna siiya uu yahay. oon aad ugu faraxsannahay garab istaagga iyo booqashada iyagii muxuu ahaa wasiir xasan oo kale insha allah sida uu macni noo garab taagan yihiin baan aad ugu faraxsannahay. marka waxaan leenahay insha allah dhalinyaraduna ha u diyaar garowdo, diiwaangelistii way socotaa kooxaha kala gedisan. hadda waxaa noogu xigi doona insha allah liiga waxaa ka horeyn doona in tababarka macalimiinta markaan qabano. waagi hore waxaad arki jirtay macnihii gobolada oo kolba shaksi aan xirfad lahayn uu iska wato ama uu macnihi waxa weye gobolku soo qaato. hadda gobolada insha allah waxaan u diri doonaa tartan muxuu aha tababarka macalimiinta markaan bilowno in macalinkii xulka gobolka soo socda sanadkan matali lahaa in halkan tababar lagu siiyo, duruus loo dhigo, waxay ciyaartu tahay la fahansiiyo, anshax iyo akhlaaq badan oo meesha kala tago, ciyaartooygu dib ugula noqdo. dhaweyd siyaasadda iyo sportigu waxa weeye way kala baxsan yihiin. siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta macnihi waxa weeye siyaasadda isku haya ani ma aaminsan in sportiga lasoo dhexgeliyo. dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogto soomaali waa soomaali, hadduu hargeysa joogo waa soomaali, hadduu jigjiga joogo waa soomaali, hadduu muqdisho joogo waa soomaali, laakiin deegaan ahaan waa la kala qaybsan yahay. waan aaminsanahay maanta hadda khaalid farmiina iga jooga puntland iyo macnihii iyo isheeg majabe iyo ibrahim baa iga jooga iyo khaalid farmino, 3 ciyaartooy baa iga maqneed hadda. highland eega goobka macnihii ciyaartooyadii u qaaday bay ku jireen. liibaan oo macnihi waxa weye goolo wuxuu ka tirsan yahay macnihi waxa weye caasimadda deegaanka. khaalid farmino waxa weeye waa nin ka tirsan kooxda ciidanka xooga gaarka ah. majabe wuxuu ka tirsan yahay macnihi waxa weeye horyaalka macnihi waxa weye zaramisi ama xaafadda shanaad. way tegeen, way soo ciyaareen, dee maanta ani ma in dhibaatayna sumcadun bay iisoo hooyeen. marka waxaan leeyahay haddaan u baahdo ano highland baan kasoo kaxaysan, haddaan u baahdo nugaal baan ka keeni, haddaan tago barab baan kasoo qaadan, gaarisaan kasoo kaxaysan. ciyaaraha caalamku say yihiin oo kale maan u dhaqmayna normally. cristiano macnihi wuxuu ka doonaya maanta juventus ma jirto dee haddii la kala qoqoban yahay. PSG ba hadda lagu soo dhaweynaya muxuu ahaa Messi wuxuu bartaa ka doonay waa maxay hadda wuxuu joogi lahaa un macnihi waxa weeye Argentina mu dhex fadhiya lahaa intaas sano muuna Barcelona u ciyaareen. waxaan leenahay isdhexgalka bulshada in la isjeclaado, in dhalinyaradu isdhex gasho weeyaan ahmiyadda koobaad ee maaha anagu wax koob iyo guul iyo waxaan u socono. ahmiyadda koobaad waa in isdhex galaan dadku, ahmiyadda koobaad waa in la isjeclaado. kubaddana waa amni gebigeeduba. haddii kubad la ciyaaro, haddii sportiga la xoojiyo, waxaan aaminsanahay qof walba oo dhibaato wada inuu iska joogayo. ilmuhu kuma fikirayaba inuu meel kale u kaco. waxaan leeyahay insha allah waan kala xaajoon doonaa dhiganaga muxuu ahaa somaliland
madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta Somaliland Fuad iyo cidda khusaysa insha Allah waan kala hadli doonaa hadda ka horna waan kala hadalnay waana wax macnihii la xalin doona insha Allah wax dhibaato ah macnihii kuma jiraan aaminsanahay taladeeda way qaadanayaan toodana waan qaadanaynaa insha Allah annaga iyaguna macnihii waxa weeye isku tashi waan ku soconaynaa waana xiriirka kaliya maanta xiriir badan hadda waan leenahay hadda intuu kas waqti naga dhacay hadda wasaaradda labor and sport la dhahay maxaa Puntland invitation bay noo soo dirtay daarti ku horeysay macnihii diyaaradda weyna soo ka habsaanay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya guddigooda fulinta madaxweynaha dhammaan macnihii waxa weeye dad xiriir leenahay weeyaan saas la mid ah deegaano badan ay dadka Soomaalida joogaan iska dalka gudihiisa ilaa dalka dibadiisa hadda xidhiidhada ka jira ee Soomaalidu leedahay Finland oo kale Mareykan oo kale oo Somali community ah Sweden oo kale way nala soo xiriiraan dhalinyarada badan inta badan markay arkeen hadda geedi socodka iyo qaab socodkayga insha Allah waxay noo ballan qaadeen garab istaag badan inoo muujiyo doonaan halkan waxaan ku soo booqanay xafiiskiisa uu ku leeyahay magaalada Jigjiga madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Cabdifataax Mataan Siciid oo nagu si fiican noogu soo dhaweeyay magaalada si fiican noo qaabilay aad buu mahadsan yahay Cabdifataax intaan ku kulmayno waraysikan la mid ah waxaan ka tagaynaa aniga iyo Jaheye iyo Cabdifataax ba salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh